markay boqolkiiba 70 federaal yihiin ma boqolkiiba 30 bay ku xukumayaan dalka fariin anigu diri maayo muusana lama taliyo halka waxaan u arkaa eetu aanu yeelay labadaa doorasho siday u kala horeeyeen siyaasi cali maxamed yuusuf cali guray oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliland oo qayb ka mid ah warbaahinta Hargeysa kula hadlay waxa uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu qas gelinaya xaaladda siyaasadeed ee dalka waxana uu ka digay arintaas sanadkii hore oo dhammaan ayuu madaxweynuhu inoo sheegay in 3 doorasho dalka ay ka dhacayaan sanadkan oo 3duba ay muddaysay waqtigoodu yahay sanadkan gudihiisa inoo sheegay in doorashooyinkaas waqtiyadooda la qabanayo siday u kala horeeyaanna loo kala qabanayo xataa iga raali ahaada inama oran bishan May sidii uu ballan qaaday sanadkii hore oo dhammaan doorashada guurtida hadeen oo qabsanto inagu maynaan oran isaga yiri xeerkii lagu dooran lahaa guurtidana January ayuu sheegay inuu xeer dejinta u soo gudbinayo dib u liqa taayada waxba kama qabno laba doorasho haray labada doorasho mid waa November midna waa December waxa soo horeysa tan November khilaafka Soomaaliland ma noqdo wax kale oo la isku ma qabto oo Soomaaliland kuma qaybsanto waxa kaliya ee khilaaf siyaasi ah ee Soomaaliland ka dhaca wuxuu ka bilaabmaa doorashada hal qabtiye la qaban maayo maanta halkeedii bay taagantahay waxa kala duwan maanta Muuse Biixi baa madaxweyne ah shalayna Axmed Siilaan yaa ahaa daraadna Daahir Riyaala ahaa shakhsiyadahooda ayaa saameyn ku kala yeelanayo waa 3 shakhsiyadood oo kala duwan waxaan isleeyahay khilaafka maanta siyaasiga ee dalka ka bilaabmaya wuxuu gaarayaa meel aanu xilligii Axmed Siilaan iyo xilligii Daahir Riyaalo midna gaarin sababtuna waxa weeye Muuse Biixi waa qof ka duwan labadaaba waana naqaana cali guray oo hadalkiisa sii wata waxa uu ka sheekeeyay taariikhda iyo waliba xaaladihii ay soo mareen nidaamka xisbiyada badan ee dalku waxana uu sheegay in arintaasi loo baahan yahay in la dhigto waqtigii Riyaale 3dii xisbiye ka soo baxay doorashadii golayaasha deegaanka 2002 bishii December wuxuu muddaxiloodkoodu dhamaanayay December 2007 waxay hoosta iska soo galeen doorashadii madaxtooyada oo iyaduna April 2008 ahayd waatayna ogeynay diiwaangelinta lagu galay la yiri diiwaangelintu waa tii inaga xumaatay kulmiye wuxuu istaagay doorashada madaxtooyada oo markaa dambeysay doorashada madaxtooyada hal soo hormariyo ta golaha degaankana dib ha loo dhigo oo dawladda dambe ee la doortaa ha ka taliso Daahir Riyaalo wuu ka aqbalay oo yidii hogaamiye ahaa kulmiye oo 3 sanadood iyo dheeraad ama 4 sanadood wax ku dhow ay dhacday shahaadadiisu xisbinimadu ayuu Daahir Riyaalo ogolaaday inay doorashada 2010 ay 3 xisbiyo shahaadadahoodu dhaceen ay u tartamaan doorashadii madaxtooyada oo Daahir Riyaalo lagaga helay oo uu si reeyo ku soo baxay inta aan sheegayba marxataa ka tihi Khalid Mahdaleeli oo Cable TV Hargeysa dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto
sidoo kale websayte-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helayaa adeegga idahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barlaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed